Asalaamu calaykum dhalinyaro. Waxaynu halkan ku baran doonaa saddex eray oo aad muhiim u ah. Ereyga koowaad waxaa loo aqriyaa improve. Improve waa inaad wax wanaajisid. To make something better. To make something better andho. Wax inaad wanaajisid. Levelka ay joogaan aad ka qaadid, level ka wanaagsan aad gaarsiisid. Part of speech hadaynu fiirinana waa verb, waa ficil. For example, jumlada daangeeda waxaan leeyahay I want to improve my English. Anigu Englishkayga ayaan rabaa inaan wanaajiyo. Soomaaliyeed, I want to improve my English. I want to improve my English. Waxaan rabaa inaan wanaajiyo Englishkayga. Improve waxay isku macno yihiin ama iskaaga dhow yihiin ereyga la yiraahdo enhance. Enhance iyadana yani waa wanaajin, yani you are making something better. So waxaan leeyahay I want to enhance English. Soomaaliyeed, waa inay isku macno iskaaga dhow yihiin. So waan tirtirayaa. Ereyga labaad aynu cashkan ku baranayno ama halkan aynu ku arki doono waa practice. Okay, practice. Practice dhalinyaro waxaa la yiraahdaa inaad wax muraajacaysid, ku celcelisid. You do it again and again and again. You do it so many times to get better. Yes, doing something multiple times to get better. Taas ayaa la yiraahdaa practice. Noun way noqon kartaa. Waxay sidoo kale noqon kartaa verb. Hadda halkan ugama hadli doona laakiin ereyga meesha stresska ka saaraysid waa muhiim. Where you put the stress is very important. For example, hadda practice hadaynu dhahno iyo practice hadaynu dhahno way kala duwan yihiin. Midna waxay noqonaysaa noun, midna verb, but taas uma joogin hadda. So waxaan leeyahay practice waa ku celcelin iyo maxay waxina mar badan aad samaysid si ugu wanaagsanaatid. Noun waa loo isticmaali karaa, verbna waa loo isticmaali karaa. For example, haddaan jumlad geli waxaan leeyahay she practices English every day. Gabadha Aamina la yiraahdo maadaama ay luqadda baranayso, she practices English every day. Maalin walba ayay luqadda practice ku sameysaa. Ama practice makes progress ama practice makes perfect. Haddii waxaad ku celcelisid waxaan leeyahay practice makes progress. Ku celcelinta qofku waxay u sameynaysaa inuu horumar sameeyo ama horu socod. waa halka aynu ku qaadanayno ereygeena saddexaad. So practice maxaan dhahay waa ku celcelin. Ereyga saddexaad cashka u imaado. The third word waa progress. Progress waa horu socod. Yani levelka hadda aad taagantayna ka weynaatid. Horu socod waxaan leenahay moving forward. Yes, so wax practice badan baa sameysay. Dadna horu socod baa sameysay. Horu socodkaas waxaan leenahay waa progress. Yes, progress. Iyada laftirkeeda sometimes noun ahaan waa loo isticmaalaa. Sometimes verb ahaan waa loo isticmaali karaa. Waxay ku xiran tahay stress meesha ka saaraysid. Which syllable are you putting the stress? Is it the first or the second? So noun waa la dhihi karaa, verb waa la dhihi karaa. Progress ama progress labadaba. Yes. For example, haddaan jumlad galiyo gymka maalmahan aad aadayay dhowr maalin. And now I can see some progress. Wax yar oo yani isbedel iyo horumar baan arkaya. So waxaan leeyahay I can see some progress. Okay? Practice waxay iska agdhow yihiin yani qofka inuu horu socod sameeyo. Horu socodkan waxaan ku soo sheegay in la yiraahdo improvement. So practice iyo improvement waa laba eray oo qaraabo ah ama iska agdhow. Waxay isla yihiin reeqan sax ama reeq qura. I will stop it here. Halkaan ku istaajinayaa. Cashkan hadduu ku anfacay nagu soo biir. dhalinyarada kala gaarsii. Group waxaan leenahay WhatsApp ah oo casharradan oo kale maalin walba kugu soo diri doono. Haddii aad rabtid nambarkeena qaado WhatsApp-ka deedna inagu soo bir. Until next time, stay safe and God bless you. Ciao.